xaflad ballaaran oo lagu furayo sanad dugsiyeedka 2017-2018 ee dugsiyada daaru raxma ayaa waxaa maanta lagu qabtay magalada hargaisa waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah Umar Shacayb Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud oo kamid ah culimada dalka mas'uuliyiin waalidiinta ay ardaydoodu dhigato dugsiyadani iyo marti sharaf kale ugu horeyna ardayda wax ka barata dugsiyada daaru raxma ayaa madashani waxay ku soo bandhigeen cilmigii muddada la soo barayay نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا Sheekh Yusuf Bedel Ahmed maamulaha guud ee dugsiyada daaru raxma ayaa ka warbixiyay maraaxilkii kala duwanaa ee dugsigu soo maray isagoo dhanka kalena xusay in dugsigu haatan 12 jirsaday hadaladiisina waxaa ka mid ahaa xafladeenan tani waa sanad guuradii 12aad ee ka soo wareegtay maalintiina aynu aasaasnay macaahidan daaru raxma 2005 ayaynu aasaasnay muddada 12 sanadood ee madarasada ay shaqeynaysay arday aad iyo aad u tiro badan ayaa ka aflaxay macallimiinta iminka wax ka dhiga howlwadanada u muhiimsan ama acdaada u firfircoona waa midhihii ay macaahidu soo saareen waxay heegan ugu jiraan macallimiinta hore macallimiinta iminka dhigta soo saaray iyo kuwa iminka joogaaba inay jiilba jiilka ku xiga ay kala wareegaan oo dhaxaltooyada iyo dhaxalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ay soo gudbiyaan jiilba jiilka ka dambeeya taasay markaa tahay hadafkeenu inaynu ka tagno ubad adag oo akhlaaq leh oo dhaqan leh oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdisan qaar ka mid ah waalidiinta ay ardaydoodu dhigato dugsiyada daaru raxma iyo waliba mas'uuliyiintii kale ee madashani ka hadlay ayaa maamulka iyo macallimiinta dugsiga daaru raxma uga mahadnaqay cilmiga iyo juhdiga ay galiyeen ardaydooda oo ay xuseen inay ka muuqato Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siiro oo ka mid ah culimada dalka oo isna madashani ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxaynu u mahadnaqaynaa macallimiinta macaahid daaru raxma ee ku mashquulsan carruurteena inay diinta baraan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidka khayrka badan leh ee maanta doonaya inay ku tabacaan carruurtoodu inay u shafeeco qaadaan yowma laa yanfacu maalun walaa banuun saddexda arday ugu sarreeya afarta arday ugu sarreeyaan uga jeeda labada hablood iyo labada inan waxaanu siin doonaa min 300 kun oo Soomaaliland insha Allah taala wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Umar Shacayb oo soo afmeeray xafladan ayaa maamulka iyo macallimiintaba ku bogaadiyay ardayda ay soo saareen isagoo dhanka kalena wasiirku dardaaran u soo jeediyay ardayda dugsigani inay dadaalkooda si leeblaabaan hadaladiisina waxaa ka mid ahaa waxaan ogahay inay tahay madrasada ugu wanaagsan runtii fiican waxa ugu wanaagsan ee magaranaysaa lagu horumaraa bayna feeskiisa inoo quraanka kariimka waxaan leeyahay macaadkan insha Allah bidmilaahi karim noqon doona mideen ku macnaheedu ku lagu faa'iido waana muhiim in loo helo oo dad aan uga qayb qaadano iyo madrasada laga dhigo macallimiinta dadaalka aan leeyahay halka soo gabagabadii waxa wasiirku halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarin uu ku gudoonsiiyay ardaydii kaalmo hore ka gashay dugsiyada daaru raxma iyo kuwii akhlaaq wanaag la yimid dhanka kale qaar kamid ah ardayda dugsigani ayaa iyaguna hadiyada gudoonsiiyay maamulka iyo macallimiintii muddada wax soo barayay